السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مركلا إيو لبرو مانتنا وا LCM أما GCD أفك سومالينا كل وحوية و نفسانيراها أي وداغان إي إسروينها أي وداغان لكن LCM وحوية و least common multiple ككالنا وحوية GCD أو common greatest common divisor أما greatest common factor marka maxay yihiin markaas sidaynu helaynaa marka ugu horeysa haddaynu doonayno inaynu LCM-ka aynu soo helno for example laba lambar oo aynu doonayno aynu usoo qaadano LCM oo labada lambar LCM of 125 iyo 75 marka waxaanu doonaynaa waxaanu samaynaynaa waxa la yidhaahdo prime factorization primeka waynu soo dhiganay factorization iyo factorieskaba waynu soo dhiganay marka imika factorization okay prime factorization waxa la yidhaahdo samaynaynaa oo taa macnaheedu tahay waa prime numberkii aynu hore usoo aragnay waa lambarkii ahaa factorieskiisu ay ahaayeen isaga iyo one oo keliya oo marka la isku dhufto lambarkaas sameeya waxaanu doonaynaa markaa lambarada 125 markaynu doonayno prime factorization waxa la yidhaahdo ku samayno waa lambarada 125 ka goormuu ee sameeya isaga iyo one oo keliya marka horta 125 intaanu taa gaadhin maxaa sameeya 125 waxaa sameeya for example oo kale waxay noqonaysaa numberka 125 sidaynu ku helaynaa waa 5 times 25 waa 125 buu nasinaya marka 5 kaas right there waa aragnaa waxa weeye waa prime number marka prime factorization keeni mid baynu ka helay already one number laakiin 25 ma yahay prime number waa maya because 25 maxaa ina siiya waxaa ina siiya horta number 1ka 1 iyo itself waa 1 times 25 intaa keliya hadday ku ekaan lahayd waxaan odhan lahay waa prime number laakiin prime number ma aha waxaa kaloo ina siiya 5 times 5 baa ina siiya marka waa 1 iyo 125 1 iyo 25 iyo 5 marka 5 kaasi 25 kaasi maaha prime marka isaga inuu prime ka sii dhignaa marka 5 kan waa prime kiisi wali waa haysanaynaa 25 kiina muxuu noqonayaa marka 5 times 5 intaas uu sii noqday oo halkaa waxaa noo soo baxaysa waa 5 to the power 3 bay iska noqon kartaaba marka powerka halkaasna powerkii baynu introductionkii powerka baynu galayba powerkiina waxa waa basekii oo 5 ah oo ku saddex jibaaran 75 kina muxuu noqday markaa 75 kana wuxuu la mid noqonayaa sidoo kale waa 3 times imisa waa 25 3 times 25 25 plus 25 plus 25 plus 25 waa 75 sidoo kale aynu samaynaa 3 gana taba waa prime self markaa waynu faraynu ka qaadaynaa laakiin 5 kii halkan ayaynu 5 times 5 baynu 25 kii ka dhigaynaa si aynu u prime garayno marka muxuu noqonayaa halkana waa 3 times 5 square haddaba prime factorizationkii waynu soo saaranay sideeba haddaba waxaynu u soconay maxay ahayd waa LCM waxa loo yaqaan LCM kana sidaynu ku helaynaa waxa weeye waa dhammaan the numberskan dhammaantood ah maxay to product prime factorizationka highest powerkoodaynu haddaba qaadanaynaa marka dhammaantood waxaynu qaadanaa highest powerkooda marka waa maxay lambarkan ay dhammaantood ay wadaagaan waa maxay dee maxay to 125 iyo 75 waxa weeyaan waa 3 5 square iyo 5 to the power 3 3ga powerkiisa maadaama aanu muuqan waxaynu oran karnaa waa 1 marka waa 1 buu la mid yahay marka waa ka ugu sarreeya waa 1 marka maadaama uu 1 yahay marka maxay noqonaysaa lambaradaas oo dhan ee dhammaantooda keeba ugu badan markaa keeba highest ka noqonaya lambaradaas labada lambar halkana imika ay noqonayaan prime factorieska oo 25 ka uu yahay waxa weeye isagu waa 5 to the power 3 kana waa maxay waa 3 to the power 3 haddaba prime factorka prime koodu waa maxay marka prime number ahaan waa 3 iyo 5 oo keliya because kan waa 5 iyo 5 square kan marka waa 3 iyo as a 5 ayaynu oran karnaa intaasaa prime numberskiya marka prime factorizationka macnaheeduna wax kale maaha waa prime numbers oo laysku dhufto marka labadan prime numberska haddaba labadan prime numberska kuweeba ugu power badan kan waa 3 to the power 1 yes labadan ba haddaba waa isku same number keebaa power weyn waxaa power weyn kana power weyn kana soo qaadanayna marka waxaan qaadanaynaa kaas
iyo kan waa 3 to the power 1 iyo 5 to the power 3 therefore baan leenahay markaa LCM-ku waxa weeyaan waa productiga markaa labadaas oo la isku dhuftay markaa labadaa lambar ee ah 3 to the power 1 ka ah times 5 to the power 3 ah oo la isku dhuftay oo inoo noqonaya maxay ahayd marka waxoodaba la isku dhufto 375 marka 375 ayaa noqonaya LCM-kii aynu doonaynay ee aynu ku helnay habka prime factorizationka haddaynu usii gudubno iminkana GCD-ga GCD waxa weeye waa common waa greatest common divisor isagana waxaynu ku daynaa GCD-gaas oo laba lambar baynu soo qaadan karnaa isla labada lambar baynu soo qaadanaynaa oo ah 125 iyo waxaynu soo qaadanaa 75 laba mitir baynu samayn karnaa marka mid waxa weeye factorizationka ayaynu samayn karnaa sidii oo kale oo ahayd prime factorizationka laakiin iminka waxaynu hab ka duwan baynu raaci doonaa marka la siiba marka ugu horeysa 125 keenii prime factorizationkii maxaynu nidhi horeynu soo aragnay waxay la mid tahay 5 times 5 times 5 oo ah 5 to the power 3 tanna waa maxay 75na maxay inoola mid noqotay waxay inoola mid noqotay 3 times 5 to the power 2 ayay inoola mid noqotay tii hore ee LCM-kii waxaynu qaadanay markaa labada lambar ee 3-ga iyo 5-ka ah ayaynu qaadanay lambarkooda weyn baynu qaadanay oo ah 3 to the power 1-kii iyo 5 to the power 3-gii markaasaynu isku dhufanay haddase tan waxay noqonaysaa iyadu taa mid ka duwan oo ah waxaynu qaadanaynaa markaa the only common prime factorieska ee ah labadani ay wadaagaan 3-ga miyay wadaagaan waa maya 75-ka keliya 3-ga iska leh kanna 5-ka oo primekii ah wuu ku jiraa laakiin kanna wuu ku jiraa marka commonkoodu waa maxay commonku markaa muxuu noqonayaa commonku waxa weeye waa 5 commonka haddaba oo 5-ka primeka ah ayaynu odhanaynaa marka haddaba commonka powerka maxaynu ka isticmaalaynaa kuwii hore powerkii hore remember waxaynu isticmaalay the highest power baynu isticmaalay markaynu LCM-ka doonaynay haddase waxaynu qaadanaynaa the lowest marka labadaasaad ku kala xasuusanaysaa marka wuxuu noqonayaa number 1 condition 1ku waa maxay waxaad qaadanaysaa wixii common ah oo kan ah labadan baa ku jira 5 iyo 5 baa ku jira iyo the lowest oo ah kan ma qaadanaysid ee kan baad qaadanaysaa marka waa hadhowta marka waxaad oranaysaa marka GCD wuxuu la mid noqonayaa GCD-gani oo ah 125 iyo 75ku waxa weeyaan waa 5 square ayaad noqonaysaa ama 25 5 times 5 waa 25 ayay noqonaysaa si kale ayaa jirta oo bonus ahaan aan idinku tusi doono oo iyadana GCD ku helaysaan oon horena usoo dhiganay sidaasna waxa weeyaan waa sidan soo socota oo ah waxa loo yaqaano waa algorithmka nooca loo yaqaano Euclidean ayaa la yiraahdaa marka algorithmkaasi waxay leedahay marka labada lambarka weyn waa 125-ka iminka ayaad waxaad u qaybinaysaa ka yar oo 75-ka let's get rid of this ka yar markaad u qaybiso ayaad waxaad soconaysaa ilaa intaad reminderka ka gaadhaysid uu 0 noqdo markuu reminderkuna 0 noqdo ayaad lambarkii ugu dambeeyay ka dhigay reminderka 0 ayaa ah GCD-ga markaas waa 0 shortkada laakiin hab yar oo waxaa jira gaara oo la raaco marka la isu qaybinayo lambaradan waana sidan oo kale 125 divided 75 markaad tii dheerad ka dhigtid oo kale imika 125 at 75 ka u qaybiso hore waxaynu soo dhiganay waa 2 digitska waad gelaysaa way ka weyn tahay marka saddexdaba wada siinaysaa marka it takes one time marka 1 bay qaatay reminderkuna muxuu noqonayaa marka reminderkiiba marka wuxuu kusoo noqonayaa halkaas oo aad kusoo boodaysaa markuu xabaddaa qaato waa reminderkii 175kii waxaa kusoo haraysaa 175 catcher waxa weeyaan waa 50 soo maha marka it will be waxay kuu qaadaysaa 125kii iyo 75kii reminderkii ayaa wuxuu kusoo noqonayaa 50 buu kuu noqonayaa halkaas oo kuusoo haraysa 50gii markay kuusoo harto haddana waxaad odhanaysaa marka 75kaas
75 kan oo academic qaybisay ayaad waxaad usii qaybinaysaa halkan daan sii dhamaystirno marka waa 50 marka markaad by 1 usiiso waa reminderkii oo 50kii ku noqday marka halkan markaad u qaybiso wuxuu u qaybinaysaa 50 halkan ku soo haray that looks like 50 now 50 baad u qaybinaysaa 50 markaad u qaybiso isna waa kana waxa weeye waa 75kii ayaad 50 u qaybinaysaa marka one time baad u siisay 50gii marka waxaa ku soo haray marka waa waxaad u siisay one time baad u siisay reminderkina muxuu noqonayaa marka r-na waxay noqonaysaa 25 bay r-kina noqonaysaa markaas 25 okay haddana weli maad gaarin rt0 marka waxaad oranaysaa haddana 50gii si systemkaasaad raacaysaa systemka yare marba 50 halkan kusoo qoranaysa 50gii waxaad divide by haddana reminderkii baad u qaybinaysaa maxaa kuu soo haray imika this 50 waa straight up marka maxaa noqonaysaa laba u sii reminderkina marka waa 0 maadaama reminderkii 0 gaadhay lambarka ugu dambeeya maxaanu nidhi ee u qaybsamaha ah ee 0ga keenay ayaa 25 ah marka GCD wuxuu noqday I'm missing the C all the time. So GCD wuxuu la mid noqday marka GCD of 125 and 75 waxa weeyaan markaas waa 25 halkaas ay ku dhacday marka intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu